waxaan doonayaa muuqaalka inaan kaga warramo dilaagii gabdhaha ku dilay magaalada Nairobi oo ay dowladda Kenya ka soo saartay xogo xasaasi ah oo la yaab leh ayaan bal doonayaa muuqaalkan inaan bal ku soo koobo arrimahaasi. warbaahinta dalka Kenya ee magaceeda la yiraahdo Citizen ayaa saacadii la soo dhaafay baahisay xog yaab leh oo la xiriirta dilaag weynaa ee Hashim sida markaa gabdhaha u dilay iyo sababihii loo dilay iyo xogo kale oo markaa arrimaha la xiriira. marka ugu horeysa Hashim wuxuu qirtay inuu dilay hooyo waris iyo labadeedii gabdhood. wuxuu ninkaan u sheegay uusan kaligiis uusan dilinin gabdhaha oo qorshaha uusan kaligiis ka shaqeynaynin oo markaas ay ahaayeen dalladan oo qorshahaasi ka shaqeynaysay asaguna marka uu qof ka ahaa. Hashim wuxuu qirtay waxa kaliya oo gacantiisa kaligiis ku baxay inay tahay gabadha Deeqa Cabdinuur la yiraahdo oo markaas uu sheegay inuu si arxan darra u dilay oo uu jarjaray kadibna meelo kala duwan uu hilibkeeda uu markaa ku aasay oo kamid ah qabuuraha Langata. wuxuu ninkaan sheegay in gabadhaani ay ahayd gaal frientiisa gabadhaan